shirka odayaasha dhaqanka ee lagu soo xulayo ergada ansixinaysa dastuurka cusub ayaa waxuu maanta ka dhacay howlka shirarka ee General Kahiye ee magaalada caasimadda ee Muqdisho. shirka odayaasha dhaqanka ayaa waxaa ka qayb galay madax ka tirsan dowladda kumeel gaarka Soomaaliya oo uu ka mid yahay madaxweynaha dowladda Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed, ra'iisul wasaare Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo madax kale oo isugu jira wasiiro, xildhibaano, siyaasiyiin, odayaal dhaqameedyo gaaraya 130. waxaa kaloo ka qayb galay shirkan safiirada dalalka caalamka u fadhiya Soomaaliya. shirka ayaa waqtigiisa dib u dhacay maanta, laakiin mar dambe ayuu furmay markii madasha shirka ay soo gaareen madaxweyne Shariif Sheekh Axmed, ra'iisul wasaare Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo gudoomiyaha baarlamaanka ee xilkiisa lagu murunsan yahay Shariif Xasan Sheekh Aadan. inta uusan furmin shirka waxaa ka dhex muuqanayay kooxaha fanaaniinta oo ka qaybgalayaasha shirka u soo bandhigayay heesaha wadaniga ah, halka kooxaha bambeyda oo ku labisan shaati cad, surwaal madow iyo koofiyad madow halkaasi ay ku garaacayeen muusika astaanta qarankeeda. goobta uu ka dhacay shirka ammaankeeda waxaa maanta si weyn u adkeynayay ciidamada dowladda iyo kuwa Amisom, kuwa oo dadka galaya madasha shirka baarayay iyadoo qof walba lagu baarayay ilaa iyo 10 goobood oo halka shirka uu ka dhacay. intaa kadib waxaa bilowday khudbadihii shirka, waxaan ugu horeyn hadalka qaatay wasiirka dastuurka Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil, waxaana uu ka hadlay hadalhaynta ugu badan qodobada ku xusan dastuurka oo la sheegay inay yihiin kuwa dhaawacaya shareecada islaamka, laakiin wasiirka dastuurka ayaa gaashaanka ku dhuftay arrintaas. دستورك سأقوله ولا يغير ضد سياسة دولية وأنا الرجل الإمام هي كبر الفريق ويعرف شيئا واحد يجرب الله دستور سوحي العالم وكسر جدا شرع الإسلام قول كلام ودستور كلام ومرة بكيت من مرات دستور قول كلام الدولية دستور وكسر الإسلام قرآن الكريم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa isna ka hadlay shirka odayaasha dhaqanka ee lagu qabtay Muqdisho, waxaana ra'iisul wasaaruhu ka hadlay arrimo badan oo ay ka mid ahaayeen in odayaasha dhaqanka uu ka codsanayo in si cadaalad ay u soo xulaan ergada ka qayb galaysa ansixinta dastuurka. waxaa kaloo uu soo hadal qaaday ra'iisul wasaaraha guulaha dowladda ay ka gaartay xasilinta dalka iyo dagaalka ciidamada hugunta ay ku qabsadeen goobihii shabaabku gacanta ay ku hayeen. ودخلت الصومالية وحصل مسؤولين وين ولدوني إن يسوقنا الجيش الصومالية بأنسحين الدستور يسوقنا في دولة الرسول وضياشنا وحينات الشغل يدخلوا كان معنا عاصمة الدولة ووقف اليوم إن يسوق الصومالية وضعها أو الصومالية تدخل الليل إن وجدنا كسران هذا أو مريض وعلى هذا شغلنا مرحلة هذه هذا في عنا وهذا الجديد يستطيع صدره شعور الوجود أن مصير الدولة لما شعب الصومالية وحاسة السورية كارا إلا الدولة إن مع القبائل الصومالية تاجروا يقربوا لو مسيروا حولها مينها يعني ما صار mas-uuliyiinta ka qayb galay shirka waxaa ka mid ahaa gudoomiyaha baarlamaanka ee xilkiisa lagu murunsan yahay Shariif Xasan Sheekh Aadan oo khudbad kooban ka jeediyay shirka ayaa ka codsaday shacabka Soomaaliyeed inay taageeraan dastuurka cusub ee Soomaaliya yeelanayso. ugu dambeyn waxaa hadalka qaatay madaxweynaha dowladda Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed. madaxweyne Shariif ayaa ku tilmaamay shirkan maalin taariikhi u ah ummadda Soomaaliyeed. waxaa kaloo yiri madaxweyne Shariif shirkan inuu bilow u yahay shirar badan oo Muqdisho ka dhici doona mustaqbalka dhow. ummadda Soomaaliyeed ayaa galowayso inay dhammaystirto marxaladii kala guurka inay ka gudubto marxaladii tijaabada ku jirta marxaladda taasina waa xuquuq shacabka Soomaaliyeed leeyihiin. waxaa la hadinayay dowladihii kala duwanaa la soo dhisay
dowlad caalami haddii aan wax yar oo ka fuma ku daro kumeelgaar dhibaatadiisa bal anigaa laga warsado madaxda kale iyo shacabkuna waa daraasayni laakiin kumeelgaar umad lagu hayo ma aha duruufta kamaysana ma jirto inaan kumeelgaar ku jirno sidaas darteed waxaa laga maarmaan in kulli lagu bixiyo sidii looga gudbi lahaa waxaa jira dhaliil laga qabo qaabka loo soo xulay odayaasha dhaqanka ee soo dooranaya ergada ansixinta dastuurkan shacabka laba ayay u kala qaybsameen dastuurka ay dowladdu qaadanayso qaar waxay yidhaahdeen waa muhiim kuwana way ka soo horjeesteen walwalka laga qabana aad u badan yahay maxamed qadar ibraahim daahir idaacaddii tv-ga risaala howlka shirarka jenaraal kaahiye muqdisho